ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday. ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xiriira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabarh Soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu qur-aan saaro. ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xiriira, dhowaana la soo bandhigi doono cadaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen. gabadha intaas le'eg inta yidhi qur-aanaan ku saarayaa farax xumeeyey, dhibaateeyey, uur u yeelay, uurkiina ku inkiray, ciidamada booliisku qabteen, xabsiga la geeyey, la soo daayey oo si sharci darraa loo soo daayey, inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka Banaadirna sharafay u tahay, ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay, dawladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay. maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyey, cadaaladda la horgeeyey oo haddana la soo daayay. laakiin insha Allah ma dhici doonto qof intuu dambi ka galay inta la qabto la soo deeyo. muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yiri waa ku daaweynayaa, wax ku khuraafaad ku akhriyay, kadibna ma dhalin buu yiri, wuu inkiray. maxkamad baa la geeyay, maxkamadeenu waxba kama sheegi karaan, laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darra. sababtoo waxa weeye qofkan gabar Soomaaliyeed uu farax xumeeyey, ilmo ka dhalay, waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo, iyadoo la marin baa la soo daayay. sida awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dembiga uu galay in lagu qaado. haddii la fasaxay annagu dembi cadan ku haynaa, haddii maxkamadda soo fasaxday iyadoo dembi cadan ku hayno ma daynayno, waa xiraynaa. maxamed cali weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.